السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك حيران channelka dalxa media soo dhawaada saaxiibayaal haddaad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar kambalaalkana taawo si ay ku soo gaaraan warbixinta iyo talooyinkan ku soo gudbina channelkan waa anigu walaalkii Maxamed Mursal maanta waxaan ku soo gudbinayaa xigmado ka hadlaya saaxiibtinimada xigmadaas oo ah ilaa iyo 10 talo aan ku siinayo insha Allah ka bogasho wanaagsan qodobka koowaad saaxiibada aad jeceshahay waa saddex nooc ayaa loo kala qaybiyaa qodobka koowaad saaxiibada loo kala qaybiyo saddex qaybood weeye tan koowaad waxa weeye kuwa ka caawiye waqtiga dhibta ku jirtay kuwa markaad dhibaataysan tahay dhibta ka caawiyo tan labaad kuwa ka tagay xilliga dhibaatada ku jirto dhibaatada ku haysato qodobka saddexaad waa kuwa kugu wacan iyagu dhibta ku geystay aan u gudbo qodobka labaad ee saaxiibtinimada ka hadlaya qaybta ugu wanaagsan nolosha waa markii aad qoyskaaga ku fahmaan sida saaxiibkaaga oo kale saaxiibadaaduna ay ku taageeraan sida qoyskaaga oo kale qodobka saddexaad saaxiibada beenta ahi waa sida harka ama hooska oo kale had iyo jeer waa kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto balse markaad gasho mugdiga aad ku jirto oo ay ka tagaan waa kuwa ka baxa garabkaaga qodobka afraad inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah qodobka shanaad marna ha ku xulan saaxiib adigoo si dhammaystiran u fahmin ha xulan saaxiib adigoo si fiican u fahmin sidoo kale marnaba ha ku waayin saaxiib isfahan darro ama muran yar halkaas haddaan sharaxo waxaa jira dad badan oo intay saaxiibo noqdeen intaas saaxiibo isku soo xirnaa kadibna hadhow wax yar isku khilaafaya macnihii fahan waa yaroo dhacay ama xoogaa murana dhex maray sidaas inaa xiriirka ku kala goysan lama rabo saaxiibtinimada waa waxa ugu wanaagsan ee qofka bini'aadamka ah ugu wanaagsan bal waxaa la sheegay inay saaxiibtinimada ku wanaagsan tahay walaaltinimada waayo waa qaali fursad qaaliyana way saaxiib wanaagsan ayaa yeelato qodobka lixaad saaxiib waxa ugu wanaagsan qofka alle ku xasuusiya khayrka kula jeclaada marnaba aan dambi ku horseedin ama kugu yeerin calaamadahan aan soo gudbinayo waa calaamadaha lagu garto saaxiibtinimada waarta waxaa ka mid ah iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad wax badan inaad ag joogto ama raacdo ogow saaxiibada noocaas ahi inay keligood dhintaan ma rabaan waxay rabaan inaad isla dhimataan oo aad ka dhacday nolosha markaad aragto kuwaas ka caraf fadlan qodobka sideedaad haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada ama cidlada hadda ka cabso inay saaxiib ku noqdaan dadka xun qodobka sagaalaad qof kasta waa uu ku imaan karaa goortii aad faraxsan tahay ama aad guulaysatay laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad jabsan tahay ama aad fashilanto kusoo gaaro ama uu fashil kusoo gaaro kuwaas ayaa saaxiibadaada runta qodobka tobnaad oo ugu dambeeya aan ku soo afmeerayo barnaamijkayga maantay waxa weeye
saaxiibka dhabta ah wuxuu xaqiiqdii ku yahay hantidaada nolosha si daacadnimo ah. Saxa wixii ka khaldamay ama uu kugu hagaa jidka dariiqa toosan kuna taageera. Walwalkoodu waxa uu ka xasuusanayaa in badan inaadan marnaba kali ku ahaanin dunidan ee aad yeelatid saaxiib wanaagsan. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ninkii dadaal raba ama dunidan maanta meel ka gaarayo booqo Dalxa Media.